Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalahayga meel kasta joogtaan. Magacayga waa Bishaaro. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla qaybsado waxaan sameyneynaa insha Allah biidnillah maalinteena. Cuntooyinkan aad arki doontaan aan sameyn doonaa. Waxaa kaleeto sameyn doonaa quraac insha Allah. Hadda waxaan bilaabaneynaa quraacdii. Waa subaxii 8:15 u maleynayaa. Saciida meesha fadhiya. Waxaan sameyneynaa boorish laga sameynayo muffins ama sidii cake oo kale, laakiin waa quraac ma ahan cake insha Allah. Xaggaasi waxaan ku sameynaya hadda arkaysaan waxaan ku haystaa weelkaasi banana xabad ah iyo peanut butter isku soo jajabiyo isku soo qasay iyo xabad ukun ku daray iyo yogurt iyo in yar oo malab ku daray insha Allah. Waxaa kaleeto ku darayaa boorishtii oo shiiday iyo in yar oo bur ku daray. Burka muhiim ah inaad ku dartid wax yar oo baan ku daray aniga leena boorishta igu yareed. Waxaa kaleeto ku dari doonaa looska Saciida ay caawinayo masha Allah ku daray looska. waa quraac yar oo fudud ciyaalku waxay u maleynayaan in loo sameeyo cake. Saciid oo kale wuxuu u yaqaanaa cake marmar wuxuu dhahaa mami cake una samee. Marka waana cunto yar caafimaad ah ma u baahna waxyaabaha ku jiro macaan badan ma lahan wax fat ma lahan waa protein insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad sameysan doontaan markaan ovenka galiyo ka bacdi waxaas oo wasaqan sameynaan iyo Saciid meel kasta sida wuxuu ugu dadaadinayo. Hadda waxaan sameyn rabaa intaasaan kalin gareynayaa weelasha yar wax ku sameynay iyo jikada wixii uu ku dadaadiyay boorishti ayaan xaaqi doonaa insha Allah intuu noo sameysmaayo quraacda ovenka ku jirto. had sida arkaysaan alaabta waan soo yara dhameeyay waan soo yara xaaqay baalkin way quraacdan way noo diyaar. Xagga sare waxaan kaga daadinayaa arkaysaan waxaa weeye peanut butterki aan soo kululay. Peanut butterkan sheegay waxaa waaye waa looska shiidan oo rootiga la marsado insha Allah. Waxaan dusha kaga daadin doonaa lianaha wax sokor ma lahan. So xagga waxaan mariyay hadda chocolate kama taqaanaa dark chocolate kay dhahayaan oo macaanka badan laheenin kaasaan kor uga soo kululay kor uga dadaadiyay iyo looski insha Allah. So haddana waan idin tusayaa sidii dhexdiisa ku soo baxday biidnillah. waa quraac aad u fudud waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan isku dayi doontaan biidnillah. haddaad rabtaan anigoo video asaga kaliya kan sameynayo leena hadda Saciida ay dhibayay waxyaabaha ila sameynayay anigoo step by step u sameynaa insha Allah. haddaad rabtaan xagga hoose igu soo qoro so waan soo sameyn doonaa biidnillah. wakaas dhexdiisana waa sidii cake oo kale laakiin cake ma ahan insha Allah. waxaa kaleeto sameynayo quraac canjeeraan sameysanay canjeerana waan sameeyay iyo digirta oo ku jirta qasaca ayaan shiilay taasina waa quraac cidii rabtaa cunayso masha Allah. kabacdi markaan soo quraacnay quraacdii soo dhameeyay oo alaabtii yar quraac iska dhaqay soo qolalkan tagay iska soo yara hagaajiyay iska soo tidy up gareeyay masha Allah. wax saamaana qabanayni maanta daaqadahan u furfuray si hawo soo gasho. kadib waxaan sameyn doonaa kitchen ku soo noqonayaa leena maalmahan waxaan sameynayay meal prep ama waxay dhahayaan cuntooyinkan waxaan sameeyaa asbuuca dambe ta la cuni lahaa hadduu Ilaahay yiraahdo intaan iska kariyo ayaan freezerka iska galiya insha Allah. so maanta waxa ii dhinayaan sameynayay xagga sida arkaysaan waxaan kasoo baxsanayaa fridge qudaartaas aan ku dari doono hilib insha Allah. qudaarta waa aad ay u fiican tahay hadday ciyaalkaaga yihiin ciyaalan qudaarta ku fiicneen oo cunistooda sidii ani Saciid oo kale
maba la tusi karo quraacda keli khudaarta keligeed marka la sameeyo. So waxaan sameeyaa maraqan ku dhex kariyaa. Hilibka markaan dabka saaro aan ku dhex kariyaa wax yar cusbo iyo waxaan ku daraa wax yar xawaaji. So maraqan ka dhigaya insha Allah. Ciyaalkina sidaas ay khudaarta jirkooda ku galaysaa ay ku cuneen ayagoona dareemin maasha Allah. So daboolkan saaraya inay isku karaan. So kaasa sidaas ay kusoo baxeen yaaba malaynaya inay khudaar tahay maasha Allah. waa iyadana waxa waaye si kaloo ilmaha ku siin karta khudaarta ayagoona dareemin insha Allah. Hadda xagan basalan ku shiilanaya leena waxaan sameynayaa maraq oo waxaan sameynayaa dhowdi hadday noqoto inaan bariis ku darsado oo dhowdi sifo aan bariis ku dalaco ama chapati lagu cuno ama waxay noqoto lagu sameeyo oo inaan freezer-ka geliyo raba maalin insha Allah aan soo saaro cuntadii fresh ah sidaas loo diyaar igu tahay. hilibkii iyo maraqii iyo khudaartii isku soo kariyay. markaas waa diyaar. Hadda waxaan sameynayaa dabkan ku yara gaabiyey waan kaga tagayaa iska dab gaaban aan ku karto dhowdi markay ka damiyo qabowdan aan ku shubi doonaa containerada. xaggan oo kale taada arkaysaan waxaan ku sameynayaa bajiyo waxaan ka sameynayaa digirta gaduudan waxaan ka wadaa yellowga no redka oo waxaan ka wadaa oo gaduudan insha Allah. waa digirtaasi ayaan ka sameynayaa. waxaan ku dari doonaa xabad ukun aan ku daray. xaggan inta sida arkaysaan waxaan ku darayaa baradho xabad baradho soo xoqay, xabad basal, xabad tuna iyo xabad qorfa oo maxaa la dhahaa xoqay isagana iyo in yaroo kabsar caleena iyo xawaaji aan isku dardaray. bajiyan waa bajiyo aada u fudud maasha Allah. isku dayi kartaan asagoo saliida ku dubi kartaa haddaa rabtidna inta sidii u sameysid kabaabka oo kaleeto ayaa birta saari kartaa dhaqsan ugu kariya insha Allah. hadda xaggan sida arkaysaan waxaan kasoo dejiyey hilibkii iyo khudaartan isku soo kariyey containerkan aan ku shubay. so waxaan sameyn doonaa markuu qaboobo freezer-kan gelinaya waana kaasi kabaabkii ama waxaan ka wada bajiyihii sidaas ku soo baxay iyo quraacda intii kasoo hartay aan ku quraacnay inta waxay aadayeen fridge-ka ama freezer-ka. so maalin kaleeta quraacdii qadadii mataqaanaaye casriyihii wixii dhan baa kuu diyaar maasha Allah. wabinaxan ka rajeynayna ka hesheen khayr badan aan idin rajeynaya. assalaamu calaykum.